waa runtu dadka marka ay taariikhdiisu si fiican aan loo qorin dii qofku de qof walba wax uu ka sheega anigu runta waxaan kugu sheegayaa maanta inaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته warbixinteenan maanta waxa ay ka hadli doontaa ciyaaryahanada Djibouti waxa aan bilownay xalaqad cusub oo nagu tala galnay 30 maalmood 30 ciyaaryahan hal maalin hal ciyaaryahan xalaqadeena maanta waxaan kaga hadli doonaa ciyaaryahanada Djibouti waxaan ku bilaabi doonaa ciyaaryahankii ugu horeeyay waxaan ciwaan uga dhignay xalaqadan iyadoo noqon doonta taxane isdaba taagan oo ah 30 maalmood 30 ciyaaryahan hal maalin hal ciyaaryahan xalaqadeena maanta haddaan eegno waxaan ku bilaabi doonaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Djibouti sababtoo aan ugu talagalnay ahayd hal maalin hal ciyaaryahan halka ciyaaryahan ugu horeeya waxa uu noqon doonaa Ahmed Salah Hussein inkastoo ay bulshada reer Djibouti ama bulshada Soomaaliyeed ee Ahmed Salah ay ugu yeedhaan ciyaaryahanka magaciisa waxa weeye waa Hussein Ahmed Salah orodyahankii ugu weynaa ee dalkaygu abid yeesho waxa uu dhashay 31 bishii 12 1956 waqti adag ayuu ku soo koray fursadahuna ma ayna badnayn laakiin waxa uu lahaa hal shay oo ka weyn wax kasta oo ahayd riyadaas oo ka rumeeyay halkaas ayuu ka bilaabay safar dheer oo uusan qofna filanayn inuu gaarsiiyo heerka ugu sareeya dunida sanadkii 1985 waxa uu ku guuleystay koobkii adduunka ee maratanka tani waxa ay ahayd fariin uu dunida u diray Djibouti waa imanaysaa Djibouti waa joogtaa Djibouti waa soo socotaa 2 sano kadib 1987 waxa uu noqday ku-xigeenkii adduunka magaciisu waxa uu bilaabay inuu si weyn looga yaqaan tartamada caalamiga laakiin sanadkii ugu weynaa waxa uu ahaa taariikh abid uu galo 1988 ciyaarihii Olombikada ka dhacay ee Seoul marathon adag ayuu ahaa kumanaan qof baa ka soo qayb galay kumanaan qof baa daawanayay orodku waxa uu ku dhamaaday taariikh lama ilaawaan oo ilaa hadda taariikhdaasi xusaysa Hussein Ahmed Salah waxa uu ku guuleystay bilada bronska taasi waxay ahayd biladii ugu horeysay ee Olombika ah ee ay Djibouti hesho welina waa ta kaliya ee Olombika ee Djibouti dhextaala ma ahayn guul fudud waxay ahayd natiijo sanado tababar sabir iyo xanuun badan intaba way lahayd haddaan eegno halka rikoodhadiisa aan jaleecno rikoodhkiisa maratanka waxa uu gaaray 2 saaca iyo 7 daqiiqo waqtigaas waxa uu ka mid ahaa orodyahanada ugu dheereeya dunida inuu dhiso jiil cusub oo dhaxal ka reeba sanadkii 2002 waxa uu aasaasay xarun horumar ah oo ciyaaraha fudud maanta boqolaal dhalinyaro ah ay ka faa'iideysatay oo uu sameeyay inuu sameeyo ekiib Ahmed Salah la dhihi jiray oo uu sameyn jiray programyada ekimoga waxa soo dhan ka caawin waxa isugu jireen daada yar gabdhi iyo wiil intaba waa ay lahaayeen sayriyooyinka ugu gaaraan daada yar Hussein Ahmed Salah ma aha kaliya orodyahan Hussein Ahmed Salah waa macallin Hussein Ahmed Salah waa tusaale Hussein Ahmed Salah waa astaan qaran waxa uu cadeynayaa inuu dal yar u dhalin karo haliyay weyn sidiisa oo kale iyo haliyada hadda jooga ee caalamka ka biyo keenay marka aan ka hadlayo taariikhda ciyaaraha Djibouti magaca kaliya ayaad horay had iyo jeer ugu horeeya waxa weeye waa Hussein Ahmed Salah xaliga weligiis nool
maadaama halka Olympiga dalka dhextaala uu sheegay waxaan xalaqadaheena dambana aan kaga hadli doonaa orodyahanada kale ee ku xiga xalaqadeenan maanta waxaan ku soo gabagabaynaynaa intaas inkastoo jecelahay inaan la yeelan doono waqti kooban waqti yar markaan dhamayno xalaqadaheena isdaba yaala ee 30 maalmood 3 ciyaaryahan hal maalin hal ciyaaryahan waxaan la yeelan doonaa waraysiyo kooban yihiin waxaan rajeynayaa meel kasta ku sugan tihiin dhamaantiin maalin wanaagsan iyo habeen wanaagsan iyo subax wanaagsan channelkiina waa channelkiini waa inaad markasta isha ku haysaan insha Allah hadii Ilaahay idmo waa inaad gaarsiisaan ilaa 10,000 subscribe ilaa 10,000 like waxaan rajeynayaa maalin wanaagsan